السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا أصحاب تقاليقة أن السلام يا لمانتين. سؤال هذا أصحاب تقاليقة aad baan idin salaamayaa. Soo dhawaada. soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. linkigii qoyskii Canada ay ilmaha ka qaaday xagee ugu soo dirtay? hay xagee ugu soo dirtay? okay, aan kugu soo celiyaa bal. aad baan idin salaamay asxaabta qaaliga ah. okay, waxbaan raalliga ahaadayaa, aad ku dul shaqaysanaya, wax yar baan hagaajisanayaa. waa idin salaamayaa dhammaantiin. sheergareeya barnaamijka. waa inoo bilaabayaa. hal qof un baan soo qabanayaa, imaamka masaajidka masjid al iimaan ee magaalada Vancouver baan soo qabanayaa insha allah. qof kale ma soo qabanayo, marka ila dhageysta. sida agree. okay, okay. aad baan idin salaamaya akhyaarta. soo dhawaada, soo dhawaada. hadidina soo dhawaada.
soo dhawaada meel kastaa joogtaan. ii soo dhawaada asxaabta qaaliga meel kastaa joogtaan. Okay, dhac akhayagay soo dhawaada insha allah. maanta hees lagu furi maayo. nin imaamkii masaajidka Vancouver baa inoo soo galaya, markaa maanta hees ma lagu furayo. culimada waa in la ixtiraamo weeyaan. maasha allah. okay okay dhac waa dhamaystay. computer baan wax ku shubanayay, waa dhamaystay insha allah. aada mahadsantihiin samirkaad ii samirteen. sida aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. isuga waxyar. okay aad baan idiin salaamayaa. soo dhawaada insha allah. wacalaykum salaam. waxaad ii soo dirtaa telefoonkan ku hadlayuu ku jiraa baan u malaynayaa famligii Vancouver ee Canada. famligii Vancouver aabahood ka kaxeeyey uu dejiyey Soomaaliya. haa okay inaan kan ka baxay noqonaysaa. bal waan isku dayay kan inaan ka baxaan isku daya. ka kale uu igu jiraa whatsappka.
ما هو فانكوفر واي سج. اوكي بس ان كو سو علي ايغا قبو واتسابكay ku jira inaan ka baxaan isku dayay. Okay, xaliga hadaya telefoonkan uu ku jira kale aan kala hadlayo qaab kale aan ku raadinaya. Okay. Oh, sure. Yes. Yes. Waa helay waan helay Soomaaliyeey horta marka ugu horeysa bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu cala ashrafil mursaliin sayidina muxammadin wa cala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacd. inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba waa walaalkiin cabdixakiin cusmaan nuur oo ku magac dheer sheekh Soomaali xerta shiikha magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. inta ay nacab inta ay jecel inta ay taageersan dhammaantiin waxaan idinku wada salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay aabe Soomaaliyeed degan wadanka Canada gaar ahaan magaalada Vancouver aad looga yaqaanay ehel khayr dadka oo dhan wada garanayaan reer Vancouver oo dhan ayaa caruurtiisii oo markaas 3 ka koobnayd iyo gabadho uur lahayd baan u malaynayaa 4 ayaa waxa uu raray Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waa saan jeclahay oo idin daari doona. waxa uu dejiyay u dhisay guri weyn yani maanta waxa inoo warrami doona horta barnaamijkan marti inoogu ah imaamka Masjid al-Iimaan ee magaalada Vancouver Sheekh Cusmaan. aabahaas qoyskiisii dacwadii waxay ka socotaa magaalada Muqdisho waxaa haysa haddaan xusuustay isaga aan u diray linkiga. Okay, linkiga aan u diraya isaga okay okay waa u diray. dacwadii waxay ka socotaa magaalada Muqdisho. aabihii caruurtii oo 4 waxaa kaxaysay Hana Abukar meel ilaa iyo hadda ay ku sugan yihiin laba hayo. jaan iyo cirib meel ay dhigeen iyo meel ay ku qarisay barnaamij bay ka diyaarisay iyadoo dhahaysa ninku gabadha uu aabayusay waa ka waxa ma siiyo reer Vancouver oo dhan oo imaamkii ugu horeeyo yaa ila soo hadlay. waxa ila soo hadasho kale maamo iyadana quraanka u dhigta ciyaalka oo laga yaqaan oo ciyaalka dugsi quraanka macallimad u ahayd. kiiska hadda waxa uu ka socdaa magaalada Muqdisho waxa gacanta ku haysa gabar looyarada oo la yiraahdo Xaliimo Maxamed oo maanta wada hadlanay hadeer way cudur daartay waxay tiri leed weeyaan Soomaaliya iyada aroorta markay u tahay xageena ayaan wareysan doonaa. barnaamijku waxa inoogu marti oo inoo imaanaya imaamka masaajidka magaalada Vancouver isaga ayaan idin sharxay isaga ayaan dhageysan doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. laakiin waxaan rabaa before ayna halkaas gaadhin in aan idin tuso qisadani xagay ka dhacday maxayse ahayd goormayse Hana gashay. okay ila wadaaga asxaabta qaaliga waan hela qoyskii. okay
Okay, so it turns out not all laptops are created equal, which is why it's switching time to a Chromebook designed to make life easy. السلام عليكم يوتيوب لايف aan ku jiro ku soo waca ma hadli karayaa okay barnaamijku waa reerka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله وكفى بالله وكيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعمة الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Soomaali weyn waa ima qashaana malaya codkayga iyo sawirkayga ma isleeyahay salaamu calaykum malay maqlaa salaamu calaykum waxaan idin hayaa farxad baan idin hayaa waxaan rabaa farxaddiina in la qaybsado waa idin sugayaa insha allah biidn illaahi kariim أنا وحنا ياهي شير بان فيسبوك جسوا جرينيا تلفوك قاعد كحر سوى دوادا قرال كنا اللي أمتشيد أنت قفوا إداونا حتى أمتشيد هذا ليس هذا إذين شيء قرال كنا عاش نور سوى دوا وهج أم سوى دوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت حب السواق علي وقت في عام بكل جوا سوى ذا جليسين السواق على maanta waxaan hubaa dhagihiina inay qarxi doonaan Soomaaliya maanta waxaan hubaa dhagihiina inay qarxi doonaan dhageysta sida xal baan ku soo jeedaa ma seexan can you believe it okay hadal de send up here Apartments.com puts more renters in new homes than any هذا other كالسحية website. تشبه لح جلسة سي By العقل sniffing وصمت out more اوكي leave me xal sidii ku soo jeedaa sidii waa ku soo jeedaa حن maxaa ku dhacay de waana daalanahay xal ma seexanin been ma idiin sheegayay sidii baan u soo jeedaa sidii xalay aan u soo jeedaa aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u daalanahay xal ma seexan inta kasoo badanaysiin baan sugayaa warka aan idiin sheegayaa informationka idiin gudbinayaa marka waa idiin sugayaa soo bato Sweden meeqa saac u tahay maanta sabtiga Sweden meeqa saac u tahay Sweden 8 saac u tahay waa la hurdaa intiina barnaamij ku jirto share gareeya please inta ka soo badanaysaan baan sugayaa xal horta ma seexan waaga iyo laakiin alxamdulillah alshukrillah waa soo guuleystay okay waa soo guuleystay qoys Soomaaliyeed ayay qaadatay maamadii iyo caruurtu aabahood raray oo masruufayay ee khayr halaya waa soo guuleysan Samira 1439 ma fahmin ma ka dhaxsanahay horta ma lay maqlaa aku maqalay ku soo kaar ku dhacday gees wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamay 114 quraankaani ku salaamay soo dhawaada xal ma seexan dhafara ahay hayla yaabina am so tired laakiin aan soo guuleystay waxaan rabaa codad baan rabaa inaan shido idin maqashiyo waxaan rabaa hawsha saan u galay saa ugu soo guuleystay dhibka aan la soo maray maxaa lagu dhahaa ii sheeg yaa dadka uu soo caawi muhiim ah inaan sheego in maxaa lagu dhahaa alxamdulillah alshukra waan soo guuleysanay I'm so proud of myself thank you ducaadiina ma seexanin dhafara ahay laakiin I don't mind it haddaan ba hawsheeda kusoo guuleystay sahara cali hurdada waa muhiim laakiin hurdada marka qaarkood waxaa kasii muhiimsan hawsha ahaysid nafta bilaadanka badbaadina ayaa ka muhiimsan hurdada ani waan hela way ii taalaa maanta cali caasho ma korinayo
wiga daba oyne waan seexanaya ilaa beri waan jiifi karaa ilaa caawa jiifi karaa laakiin muhiimadda waxaa waaye qofka aad badbaadinaysid waa inaa meesha aa kasoo waday dhibku ku hayay markaa kasoo kaxays waa inaa meel kala keentid oo maxaa lagu dhahaa isheg safety ah so ilaa qofka meel safety ah ka geeyo alla maanta buraanburkaad dhegaysto waxaa isoo dirta buraanburkaada in dhegaysto buraanburkeeda iyo waxeeda ma rabna na dhaafi soo saari karta you know what hore baan ikugu sheegay qofu ilaahay wato cid hor istaagi karta ma jirta I believe that okay qofku ilaahay sita salaaya u jeed maryam waxaa sheegayso rumahay waan dhafarsanahay qoraalkiina ma jeeda haddaan ku salaamu waay don't get me wrong ilaa xal baan soo jeeda sidaan kusoo jeeda hadda adigu iisoo seexad anima soo seexanay si weli stiig waan huldadaara inaan saxno hadda seexanaya marka lifekan ka baxa salaadaygaan isku dara digaan layahay qoraalkiina istaag ba hadda iyo haddaan u jeedaa xabsa waa mahadsan tahay codadkaan shidayaa marka suga okay shid codod wiilka faranskayga ahaa wuxuu igu dhahay alla waxaa soo gashay luul dayman ee dadeeqa macmac bay ku siisay adi inta guriga kula joogto oo macmac waa waxayna kala waxaan Soomaali aad ku khaladtay no more macmac no more marka hurdadii ahaysa ilaahay bay og tahay sigorta buraanburkana idiin shidaa na buraanburna ma rabna u kaadiba automatically codka aan record gareemaan sheekada ka sheekaynayaa kadib codka record gareyna codka oon maxaa lagu dhahay record gareeya soo daynayaa then waan automatically waan ka baxaya qofaan sugaya ma jirto nafa ay ma seexanay xalin baan soo jeeday marka waxaan bilaabay waa soo badatay 200 almost waa gaartay sheekadaan bilaabaa marka okay gabar baa waxay ila soo xiriirtay Soomaali ah okay gabar Soomaali waxaa ila soo xiriirtay 2 months ago okay 2 bilood ka hor gabar Soomaali waa ila soo xiriirtay gabar aad u dhiban bay ahayd gabadha waxay tiri hooyadii ma noola aabihii dhalay ma noola listen here inaad ku cimri qaadataan baan rabaa dadka ilmaha agoonta rajada haaya okay hooyii aaba ma qabay igu tiri caawana idan live soo gelinaa insha Allah biidin Ilaahi karim iyadaa sheekada 1 by 1 sheegaysa laakiin anigu waxaan rabaa inaan usoo galo waxaa waaye iyana hordhac inaan idiin sheego ducadiina inkiga mahad celiyo codadkii hore aan ugu qabtay iyo habka ugu soo saaray meesha ay joogtay inaan ka sheekay part 1 part 2 idan ka sheekayn doonta iyadaa soo live u wareysan doona telefoon okay iyo wakay waa imaqashi si fiican imaqashi maahan malay maqlaa horta maskaliga iska dalmay wow afara ay tabajar malay maqladaydan hay la yaabina xal ma seexanay hawa imaqashin okay gabadha anayto 2 months ago bay soo wacday waxay igu tiraahday waan dhibanahay waxaan ka imaaday wadamada qurbaha ka imaaday waxaan wataa caruur hooyaday aabahay waa dhinteen voice is good thank you amaale soo dhawa calaykum assalaam xabiibti hooyaday aabahay way dhinteen haye hooyo aaba kala Soomaaliya ay soo korsaday haye waxay igu tiri awsiyaan nin baa lagu daray oo asna isku meel joogaan ida Mareykanka ka timaada ninka kan duu ka imaaday waa la isku daray ليلى سعود وعليكم السلام شكرا دام بلا وقفت ما السلام وقفك السلام عليكم سوقر وعليكم السلام ده صوماليه اوكي ستوب كرداي هاي ما صيحه حاله ايدين كيسو صيحه انا فرع هاي ما فهمتين شكرا دما شكرا idin sheega وانا صيحه ان شاء الله marka waxa dhacay gabadha iyada yar ninka lagu daray ninka uu waday xogeeye Canada abuse ku bilaabay Soomaaliya dhagihiina furta shakhsiga ninkaasi yahay iyo magaalada uu degan yahay Vancouver sida looga yaqaano imaamka ayaa idin faahfaahin doona macallimadii quraanka ay la soo xiriiday ilaahay waa igu ogyahay baaritaan dheer oo aan sameeyay aabe ehlu diina aabe ehlu khayra yuha
markaa bal dhegaysta soomaaliya waxa dhici doona maanta dhegaysta abiis anu waa idin kormaraa deeply ma idin sheegay abiisu ku bilaabay deen uu kasoo waday soomaali buu keenay soomaali uu keenay baasabooradu ka qaaday guri kusoo xiray raashin ma siin jirin cunto ma siin jirin lacag ma siin jirin waxay tiri dhar ma haysto waxay tiri kaba la-aana ahay kabaha waxay tiri marka iga go-aan duni cirbad intaan qaadan talaay tirada waan talaa kabti waxaan isku talaa kabti wixii iga go-a waan isku talaa adigu lagama sheekayn karo the worst things ay soo marto okay ani marka isoo wacda dhegaysaa kule listen here okay number one waxaa samaynaa ku dhibaatay booradaada gacanta ma ku haysa may asaa haaya igu tirahday okay asaga ma haya ha okay waxaa samaynaa ku listen sawirro iga soo qaada baasaboorada yadaa hadlaysa marka codadkii marka conversationka la sameynaya codadkii aan ka qabtaa hayaa dhegaysto xayeysiin bay dhex geysay waa ina dhaafinaya ukaadiya biliis dadkii taageeraya hana u doodayay dadkii u doodayayo maanta soo fadhiista dhegaysta kabacdina dhegaysta reer vancouver warbixinta ay ninkaas ka bixiyaan qoyskii lama haya ilaa iyo haddeer jaani cirib meelay dhigeen waxaan halkan ugu mahadcelinayaa oo aan ugu mahadcelinayaa qof isiiyey awoodda inaan kaga soo saara soomaaliya muqdisho thank you magacaaga ma sheegaya awoodda ilaahay baa awood leh qofka awoodda isiiyey oo habeen saqdi dhaxa ama maalin ama duhur ama casar ha ahaatee awoodda isiiyey ilaahay baa awood leh oo aanan ciidna ila hadlin oo laygu dhihin ahaano qof saa kuu fiirin karta ma jirta mahan adaa iskale muqdisho go ahead thank you abaalkaaga magoos qof kasta u mahadcelinayaa thank you aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baa umahadsan tahay qofkaasayto waad mahadsanta okay codadkii baa shida gabadh maanta kow isoo wiciisa dhegaysto muqdisho maxaa tiri 2000 maxaa tiri 2017 July aad timaadeen muqdisho maxaa tiri 2017 aad timaadeen haye saddex cunugaa markaas wate haye hadda cunugaa ku dhasha oo wuxuu jiraa 1 sano iyo 5 bilood jira haye asiga sharci ma haysto aniga baasaboorkii maraykanka iga dhacay wiilkoo kaleeto oo wiilasha kaleeto saddexda ku yaraayna baasaboorkia ka dhacay dhib ma laha baasaboorka dhicitaankiisa baasaboorka wax koobi ma ka haysaa sawir ma ka haysaa waan kasoo qaadi karaa social securityga waan haystaa baasaboorradana sawir waan kasoo qaadi karaa iyo ilmaha citizenshipkooda waxaas dhan isoo sawirkowdhe waxa dhan waa laiga xaraystay laakiin si waxaan ku dhahay maanta waxaan ku dhahay canada u noqonaysaa you know intus meesha oo qasnada uu gashtay sida loo furo ibbaraan dhahay haye marka waxaan ku rabaa inta barbaranayo alaabta binaanka hataa laa dhahay because he can change mogta numberka hadda wuu bedeli karaa marka adigu markuu kaasii jeedo mase warar ka qaadisa oo sabaalada maya markuu shaqada aadan qaada okay good haye marka that's all I can get right now intaas muhiim waxay raacaynayaa waxaa kale aan rabo shaqada aadan qaada okay good haye marka that's all I can get right now intaas muhiim ah kowda waxaa kale aan rabo oo muhiim ah xaafadaada kanada ma degnayd mise waxaa degnayd maraykanka okay xayeysiin bay dhex gelisay
video kasta markuu in yar socdo xayeysiin bay gelinaysaa si ay lacag ugu samayso soomaaliya qisadan maanta waa qiso yaab iyo ama kaagi doontaan okay Canada ma degneed mise Mareykanka aniga kana Mareykanka ku soo koray Mareykanka laga soo aroosay laakiin hadda waxa ka soo tagnay Canada ka soo tagnay okay hooyada iyo aabaha ku dhaleen ma nool yihiin mise waa dhinteen way nool yihiin hooyada waxay joogtaa xamar u soo guurtay joogtaa aabaheen wuxuu joogaa Mareykanka ku joogaa ma kuwii ku dhalaan mise kuwii ku soo korsaday dhalashay inay ayuu soo korsadeen laakiin inay dhaleen ay qoran ha okay laakiin kuwii ku dhalay waa dhinteen maahan wax walaal ah ma kula dhashteen waxay joogaan Soomaaliya joogaan wixii dhan oo ila dhashay oo waxaan ka wadaa yacni kuwa ku soo korsaday kuwii dhaleen mise kuwa adigu ku soo isku aabiyiin yaaba su-aasheedu waxa kuwa adiga hooyada aabahaaga dhintay waxay dhaleen ma nool yihiin mana taqaanid ma badana ma laba ka barto hadda ila joogto wiil iyo gabar ay la joogaan okay intee degan tahay iska yar yar muqdisho intee ka degan tahay talaxa deganahay taleexka intee talaxa deganahay safaaradda Turkiga oo hore ka guurtay maarta agteeda deganahay okay gurigeena ganjeelka albaabkee waay albaabkee waay number ma ku qoran Soomaali address ma laha qadee suu egi kal rakee madow waaye geedo raqay u leh saddex geedo waaweyn oo raqay u leh iyo hal geed talaalo weyn guriga iskale marka ma adiga iskale soo ijaarateen ma lihiin anaga wax iskale nin oo Canada jooga iskale okay ninkaaga muxuu ka shaqeeyaa marka wuxuu ka shaqeeyaa in Canada post Canada meel dhow ka shaqeeyaa okay Canada goor wuu aadaa adigu Canada goor muu socda ninkaaga wuxuu dhahay he's supposed to leave but hadda wuxuu dhawayaa ma socdo okay iska daa warkiisa okay waxaan ku weydiiyey Canada adigu intee ka degnaan jirtay waxaan ka British Columbia Vancouver deganaa jirana Vancouver adresskaaga ma sheegi kartaa ka degneed hadda korka ma aqaan oo waa hilmaamay marka I'll send you like waa ku soo tax gareyna iisa taxi garay adreska degneedan ilmaha iskoolka dhiganayaan deganeena Suuri districtka Suuri la deganeena okay Soomaali ma ka taqaani Vancouver Soomaaliya waa ka aqaan yaa ka taqaani magaaladaas okay xayeysiin baa soo gashay okay nadhaaf okay waxaan rabaa qisada inaan gadaal idinka dhameeyo waxaan wacayaa 2600 oo qof baa ku jira waxaan wacayaa imaamkii isaga ayaa faahfaahin idin siin doona okay السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إمام شيخ عثمان صماها. أهلا وسهلا. الله يخليك عدك أنا كروقات لبكون يلح بقول قف الصومالية أياك داوانا برنامجكي قيسكي مقالة الدجنا المرخاتك كأحد وان دار فيديو جودي دتك الصومالية نواد جيسين لبكون يلح بقول قف باكوجرا magacaago saddexan masaajidkaad imaamka ka tahay iyo qisada reerkaas inaad ka sheekaysid ayaan rabnaa. Assalaamu alaykum. Ma maqlayaa horta ma maqlaysaa marka hore intaan waa lagu maqlayaa codka laakiin in yar igu yarada dadka ma maqashaa. Okay ku soco. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم أجمعين.
walaal aniga magacayga waxaa la yidhahdaa sheekh cusmaan xaaji maxamed sheekh cusmaan xaaji madad waxaan imaam ka ahay al-iman islamic center masaajid la yidhaahdo oo ku yaalo Surrey BC British Columbia gobolka la yiraahdo ee Canada ka mid ah galbeed Canada ku yaala marka horta intaas waa magacayga iyo masjidkan imaamka ka ahay waxaan u soo gudbayaa arrinta su'aashaad weydiisay oo qisada reerkan dhibta ku dhacday magaaladan deganaa aan aqoon fiican aan u leeyahay labadaba odayga iyo gabadha xaaskiisaba iyo ilmaha ay dhaleen waxay ahaayeen reer aad iyo aad wanaagsan oo nagu xiran oo masaajidkeena ku xiran ninka odayga gabadha qabana wuxuu ahaa dadka community-geeni ugu activesan magaaladan wax badan deganaa aad iyo aad loogu yaqaan akhyaarnimo iyo dhaqan wanaagsan kana mid ahaa dadkii masaajidkan asaaskiisaba wax ku lahaa wuxuuna ahaa boorka maamula isku yani masjidka ayuu ka mid ahaa nin wuxuu ahaa aad yani bulshada dhexdeeda ixtiraam ugu leh shaqaysta ardayna ahaa dhinac kale dadaala jaamacad uga baxay halkan kadibna digreegii labaad oo masterskii ka qaatay reerka saasay horta u dhaqnaayeen dhowr caruur 4 wiil ah bay lahaayeen oo yaryar ah maanan kala fogeyn xataa degaan ahaan xaaladoodana aad baan ula socday reer isku faraxsan oo aad iyo aad u wada jooga dhaqan wanaagsan ayaa ka dhexeeyey inta yani la og yahayna ama dadku ay ka wada markhaati yihiin nin aad iyo aad mas-uul u ah oo reerkiisii dhaqda oo dhaqaalaysta ayuu ahaa waxaa dhacday sida igu maqaala gabadha inay jeclaysatay inay ilmaha soomaali ula guurto ra'yigana iyada ayuu ka yimid waliba markaas isaga arday buu ahaa oo markaa marxalada masterskiisa ayuu ku jiray inay xataa sugto waa ay ka degdegtay kadib waa kaxeeyey waddankiibuu geeyey wuu soo laabtay masterkiibuu dhammaystay waa uu guuray yani ayaga dartoodii buu waddanka Canada uga guuray oo uga daba tegey guri bay degeen isagana xagga uu ganacsi ka bilaabay xataa aniga waan ku booqday Soomaaliya waa Muqdisho waan tegey Muqdisho waan tegey waan kusoo booqday gurigoodii aad bay u ladnaayeen dad dhib ka muuqda ma ahayn dad faraxsan bay ahaayeen marka waxaa shoog nagu noqotay wixii aan media aan ka maqalnay iyo dhibkii reerka ku dhacay iyo accident-kan dhacay aad iyo aad bay dadkii magaalada dhan shoog ugu noqotay dadkii waxay la noqotay waxaan la filayn oo aan suuro yani la rumaysan karin waan dhegaystay gabadha arrintaasi samaysay hadalkii ay ku hadlaysay iyo waxa ay sheegaysay gabadhaas magaceeda u sharax gabadha waxaan filaya in hana la yiraahdo hana in la yiraahdo filaya marka waxay ku andacoonaysay oo sheegaysay reerkan inay rafaad badan ay lagu hayay abuse badan lagu hayay dhibaato badan lagu hayay gaajo lagu hayay wax noocaas oo kala kullayba gabadhiina way ka hadal siisay duruufta iyo waxa ku kalifay aniga ma garan karo laakiin waxaan ogaa inuu aad iyo aad ugu ronaa hal tusaale haddaan ku siiyo ninka yani reerkiisa wanaag uu u qabay markii uu isaga halkan masterkiisa u dhammaystay oo uu u socday ayuu wuxuu surprise ahaan gabadh iyadoon ogeyn baasaboorkood yani baasaboorkeedii halkan bay yani u yaaleen yani reerku waxay ahayn 2 citizen bay lahaayeen American way ahayn citizen iyo Canadian citizen marka baasaboorradoodii kay ku baxday mooyaane kii kale halka yaalay iyo kiisii wuxuu ku qaaday iyadoon ogeyn visa ugu qaaday umra ah oo markii uu xagga tagay iyadoon filayn uu yiri waxaan ku geynayaa umro
oo uu kaxeeyey oo maka geeyey oo madiine geeyey oo maasha allah halkaas yani oo aad iyo aad uga soo farxiyey marka reerka horta sidaasay u dhaqnaayeen wax dhib oo laga maqlayna ma jirin waxaanan la yaabanahay haddii xataa gabadha ay dhib qabto dadka uu ka agdhow oo aad hoos uga warqabaan ahayn ama dad badan oo saaxiibo ahoo magaalada degan oo dad asxaabteedii baa deganaa dadkii dhan waa la isweydiiyey war gabadha wax dhiba oo sheegatay ama wax ku dhacay ama wax sidee wax u gaareen qof ay kala tashatay ama ay u warrantay ma jirta ilaahay hadda lama hayo marka intaas waa horta intaan ka ognahay waxaan aad iyo aad noo walwalgelisay ilmaha masaakiinta ee yaryaraa ee waalidkoodu uu geeyey dugsi qur'aan oo qur'aanka xifdinayeen iskuulna uu geeyey oo runtii uu jeclaa inay diintoodina bartaan dhaqankoodina ay bartaan waxbarashadoodina uu dadaal gaara iska saarayay in iyadana markii hore saas baan doonayaa ay lahayd in maanta aan meel lagu ogeyn xataa safetygooda iyo nabadgelyadooda waad garan kartaa yani waalid wax dhalay oo ilmo afara inta laga qaatay inay nool yihiin iyo in kale meelay ku dambeeyeen aan la ogeyn marka runtii qofkii jariimadaasi geystay waxa uu mudan yahay in runtii laga daba tago lagulana xisaabtamo maxaa yeelay damageka ama dhibaatada intaa la eg ee loo geystay waalidkii dhalay sidoo kale ilmaha yararka ee masaakiinta ah maaragtay hadda dhibta haysata oo aan iskuul aan filaynin inay hadda dhigtaan ama meel ay joogaanba xataa aan la ogeyn khatarta jirta iyo waxyaabaha la sheegayana si yani meel walbaba la sheegayo waa dhibaato runtii reerka ku dhacday waana u ducaynaa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu ilaahi subxaanahu watacaala ayagoo samata yani nabada yani u keeno waalidkood dhib ma leh dadku iskhilaafi karaa gabadha hadday qoonsatay ninkii qabay jidad badan baa u furnaa inay dadku u warranto ehelkeeda u warranto culummada magaalada joogta haddii dhib waagi jiray ay u warranto dadka ay isleedahay waxbay kula qaban karaan nin dhib laga fili karay ma ahayn sida ay jeceshahay baa markaasi ay loo yeeli lahaa tan labaad haddii xataa ay soomaaliya nacday waktiga ay joogtay waxaa u suuragal ahayd inay xataa isaga u sheegto iraado ay ku tiraahdo aniga waxaan rabaa inaan laabto oo ilmahayga inaan dib u laabto dee talo ka dhaxaysa ahay laba qof oo isu dhaxay oo carruur isu dhalay oo isqabay laakiin sida tan oo khiyaamada ah hadda wax u dhaceen oo gabadha sida loo maray habaabiyey iyo waxa ku dhacay aanan fahmaynin arrintaasaa dhacday marka intaa waa inta aan ka ogahay aan hoosna ula soconno maalin walbana jaaliyadda magaaladan aan degannahay isweydiiyaan war ilmihii ma la helay war ma nabad qabaan maxaa soo kordhay dhibtaas oo hadda aan u malaynayo inay dhowr biloodba ay sii galayso arrintaas sidaas weeye qisada oo kooban biikhtisaar okay sheekhow ilaahay khayr ha ku siiyo waxaad noo sheegtay markuu ninku raray reerka uu muqdisho geeyey in aad muqdisho gurigii ugu tagtay adoo Canada ka tegay waa jirta ha inaan gurigooda ugu tagay gurigoodana weliba marti u noqday aad bay u ladnaayeen wax buuqa kama taagnayn dad isku faraxsan bay ahaayeen okay ninkuna wuxuu ahaa nin ahludiin oo masaajidka ku xiran weliba ka tirsan boorka masaajidka masjid al-iimaan magaalada Vancouver welina waa sidaas haddaan kuu sheegay nin yani akhyaara dhaqan xumo aan lagu ogeyn balwad aan lahayn masaajidka balse dadka si walbaba u taageersan yani dhaqaale ahaan inuu ku bixinteeda iyo juhdigiisa wixii uu gelin karo oo jaaliyadaasi masaajidkeedii diintooda lagu horumarin karo qayb ka buu ahaa runtiina intii uu ka maqnaa xataa waa la misgareeyey marka dhibta ku dhacdayna dadka aad iyo aad baa looga naxay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu soo fududeeyo oo reerkaas isagoo nabada ilaahay si degdega isugu soo celiyo ciddii ka dambaysay falkaas khaladkaana ilaahay subxaanahu watacaala uu ka qabto ummadda haddii yani dhaqanka noocaas oo kale hadday soo galeen dad
reeraha u kala burburiya sidaas oo kale ama dhibaato yani maaragtay ku sameeya yani waxaan leenahay allaha ka qabto ummadda intaasaan yani okay sheekhow ilaahay khayr ha ku siiyo qoyskii hadda meel alla iyo meelay ku sugan yihiin lama hayo soo maaha lama hayo ilaa iyo maantan hadda aan wada hadlayna saacadan lama hayo shalay baa suukaay dambeysay aan wada hadlaynay waalidkii maantadan hadda ila hadlays meel kuma ogi buu yidhi marka yani runtii dhib weyn baa reerkaasi gaaray sheekhow ilaahay khayr ha ku siiyo waxaan la xidhiiray looyarada kayska haysa oo la yidhaahdo xaliimo maxamed in la yidhahdaan jeclaha muqdisho joogta dacwadda muqdisho ka socota maxay tahay iyadu wuxuu ii sheegay inuu looyarad qabsaday gabar soomaaliyeed oo looyarada oo muqdisho joogta oo keeskan ay gacanta ku hayso marka iyada ayaa hawshii ku jirta buu yidhi dabcan de waxa la qofkii aad aragtaan oo u baahan arrinta ku tacalluqdo gabadhaas hadda ilmaha dhibtaasi lagu tuhmayay inay u geysatay ama iyadaba sheegatay inay iyada ka saartay halka waxay la xiriiri karaan buu yidhi gabadha looyarada hadday cid jirto danaynayso ama baahay u qabto arrimo dhibaatooyin ku dhacay ama lagu sameeyey oo kaga yimid gabadha hadda aan haynay magaceeda hana abukar okay sheekhow markaa ninku hadda muqdisho joogaa looyarada wuxuu u qabsaday soomaha inuu dacweeyo hana abukar طبعا مقدشو كقبصدي طبعا يعني انه حقي سهله اولادي سنه لو سو عليو ظلمي عده جيستينا هذا الظلم هذا ما عرفتي اي بحسو برايس كيسا قفكي دبكا جيسي دبكا انت لاك واد غرا كرتا ودمدان ان كنول لهي جريمه انت لاك انت يعني قفكا اي كو عداتو ماشي ومرايو marka waxaan rajaynaynaa in Soomaaliyada ay hesho cadaalad gabadhaas wixii yani ay geysatay inay maartay cadaalad la mariyo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa okay ilaahay subhanahu wa ta'ala horta hawsoo sala aabahaas ciyaalkiisa jaaliyada Soomaaliyeed degan magaalada Vancouver sidee bay arrintan u arkeen wallahi arrintu waxa aad bay shoog iyo naxdin ugu noqotay يعني هدي قف أو لا يقانو أما دقن حمل لقو يقانا أما أبيوس لقو يقانا أما هري دعوين أقيا لان أو لأقيا هاي أي أحال هاي تددتكو ويبا قروصان لحيانا ده نكاسو عكسور قلب لديه لها هايش نكاسو دقن كي لقو يقاني iyo intuu wadanka deganaa iyo asluubkiisa aad bay runtii u walwalgelisay inta waxaan suura galayna haddii abuse uu jiri lahaa intaasi caruura inta ay ku dhalaysay suuragal maaha wadamadan qof inta caqli leh oo weyn oo dhib lagu hayo inuu iska aamusnaado meesha waa ogtahay wadamadan waxaa u furan inay isla markiiba telefoon kor u qaado oo ay tiraahdo dhibkaas ay haysta dhibkan baa lagu hayaa intaas ayaa ku filaan lahayd laakiin weli lagama hayn inay dacwo noocaasa ay dacwotay ama boolis ay wacatay ama dad kale ay la sheergaraysay si wax looga qabto marka say wax u dhaceen waa la garan la'yahay marka arrinta halkaas bay maartay ay maraysaa kullayba xaqaa'iqda way soo bixi doontaa biidni ma laga report gareeyay caruurtii ma loo sheegay bacdama ay Canadian ahaayeen aabahood iyo community ma sameeyeen inay wadanka Canada dawladda Canada lala socodsiiyo arrintii taas kullayba aniga aqoonteed war uma hayo hadday jiraan dad report gareeyay oo community-geena ka mid ah taas ilaahay hadda waxaan aniga yani ka ogahay ma jirto imisa bilood bay hadda qoyskaasi la la'yahay wallahi تقريبا ما حسوسته لكن كل لابو بيلود وكبدن تاع فيليا مال جاني عرب دغانا لما هيو ولي والول كاد قفك waxa walwalinay ilmaha nabadgelyadooda tolo ma nabad qabaan waalid wax dhalay oo ilmihiisa jeclaa oo wax bari jiray anug yar oo Soomaali ku dhashay baa ku jira xataa ma garatay marka ilmahaasi inay xaalad nafsiya oo aad u culus bay ku jiraan laftooda aabahood waayay oo laga yaabo meel inay ku xabisan yihiin
waxaan maqlayaa shaki ah inuu jiro inayna waagi iyada waxay sheegtay waddanka waan ka saaray laakiin waxaan maqlayaa halka ay qabo sheekho yaa yiri waddanka waa ka saaray mahana abukar baa tiri waan ka saaray waddanka hana abukar baa tiri hadalladii aan ka dhageystay ka mid ahayd waan ka saaray meel nabadgelyo ana waan geeyey haye marka dee hadalla kalan waxaan leeyahay waxay u eg tahay waddankii inay joogaan laakiin meel ku qarsoon yihiin marka hadday dhab tahay oo ay weli u suuroobi weyday inay saarto laakiin ay damacsan tahay dee waa arrin oo dabageli karo oo ilaahay idinkiisa ilmahaasi nabadgelyadoodii iyo inay waalidkood u noqdaan baan rajaynaynaa haddii kalese haddii dibadda xataa loo saaro ilmahan ilmo canadiana way ama americana kolleyba waxay kusoo laaban lahaayeen waddamadii ay haysteen dhalashadeeda maaragtay waa la arki lahaa laakiin ilaa iyo hadda meelay lagu sheega haddayna jirin runtii arrintaas walwal weyn bay dadka gelisay gaar ahaan waalidkii aabihii dhalay iyo qaraabadoodiba ugu dambayn sheekha horta ilaahay khayr ha ku siiyo dad badan ma oran karo shakhsiyaad wax magarato ah oo social mediaha ku jira oo hana abukar dulmi ugu doodaya way ku dhagaysanayaan wayna ku jiraan meesha way kula soo xidhiiri doonaan shakhsiga aad tahayna way ogaan doonaan arrintaani arrin easy maaha waxaan la hadlay xaliime maxamed gabadhii looyarada ahayd ee keeska haysay xilli dambe ayay hadda u tahay aroorta marka muqdisho waagu u baryo ayaan wada hadlanaa marka ummadda soomaaliyeed ugu dambayn bacdama aad nin imaama tahay inuu ka faa'iidaysanaya 2,500 qof bay hadda maraysaa inta ku daawanaysaa maxaa ku dhagaysanaysaa ummadda soomaaliyeed gabadhani dhibaato weyn ayay u geysatay shacabka soomaaliyeed hana abukar la leeyahay qoysas soomaaliyeed bay burburisay ood arkaysid qoyskaas inuu ka mid yahay dhibaatooyin aad u badanna waa ay geysatay caruuraa laleeyahay reeray kala furtay gabadh bay tiri aabaheedaa fuulay been bay ahayd ugu dambayn maxaad ku goobaabinaysaa shacabka soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka qurbaha jooga ee caruurta haysta ee ay ka faa'iidaysanayso bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsantahay cabdulxakiim waxaan leeyahay ama masajkayga ama risaaladayda bulshada soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaan leeyahay aad iyo aad u feejignaada yaan laydin dagin dad waxaa jira aan alle ka baqaynin oo dugaaga oo danahoodii un fiirsanaya iyo xoole iyo maado ayaga ay ka helayaan bani aadanka jiridiisa qiimo uguma fadhido dadnimadooda iyo sharafkooda qiimo uguma fadhido marka dadka noocaas oo kale ah maanta waxaaba la sheegayaa xataa bani aadamka in laga tijaaraysanayo xubnihiisa marka dhibaatooyinka noocaas oo kale ah caatifad laydinku soo galo oo ina wax laydin qabanayo iyo wax noocaas oo kale war qofaydan aqoonin hal iska ilaaliyo balse qof tuhun uu saaran yahay oo intaasoo dhibaataha dadku ay ka sheeganayaan dee waaba iyada waa meel waaba sii xag jirtaa laakiin qof kastoo idin waxyaabahan baraha bulshada sharoo dhan baa soo gashay ummad yani dhib badan oo ummadda dhibaatadoodii yani ka shaqaynaysa xagga diintoodii ha noqoto iyo akhlaaqdoodii ayaa ka wada furtay muxuu ahaa meelo ka wada furtay marka ha laga feejignaado dadka dhaqan xumida iyo dhibaatada ummadda ku haya yaan la aaminin ilaa qof aad adiga taqaana 100% aad iska hubisay mooyaane asraartiina cidinaha maaragtay ha uga warramina yaan lidinku maogtahay yani lidinku maogtahay dagin waxbaa lidin qabanaya caadifad dadkan waxtarnaa iyo wixii la mid ah waxaa la sheegayaa in maaragtay lacaga soo dira xataa lidin yidhaahdo sadaqa soo dira yaa kafaalo qaadaya in lacagtaasi in dad wax loogu qabanayo waxaase laga yaabaa in dad muslimiin kale lagu dhibaatayo dhibaatooyin kale loogu geyso adigana aad yani lacagtii aad bixisay aad mas-uuliyaddeeda qaado yaan laiska jiro dadka ummadaha dadka wax tarayo ee la yaqaano oo lagu kalsoon yahay haddaad sadaqa la baxaysaan oo idinka 100% aad hubtaan
dadkaasi xaggoodii ku bixiya dad aan la aqoonin oo intuu halkaa kuu soo fadhiistay oo aadan maaragtay weligaa arag oo yani af macaan iyoyn idin degin ilaahayna oga baqa owlaadiina iyo naftiina mas-uuliyadda ilaahay idin saaray intaas baan leeyahay darsina ha u noqoto qof walbaba wax hadda dhacay ama dadka hadda wax ku dhacay maaragtay wixii ku dhacay darsi ha u noqoto saasaan leeyahay aad baad umahadsantahay sheekhow jazaakum allah khayr ilaahay cumrigaaga ha dheereeyo allah subxaana wa tacaala qoyskaas soomaaliyeed aabbaha soomaaliyeed ee carruurtiisii ka maqan tahay iyo xaaskiisiina ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryanaa in ilaahay usoo sahlo haana abuukarna dhibaatada ay ku hayso ummadda soomaaliyeed aad arkaysaan in ilaahay ka qabto sheekhow aad baad umahadsantahay جزاكم الله خير اوكي soomaaliya dhagihiina wax baad ku maqlasay dadkii haana difaacayo waxaan idiin qorayaa lambarka imaamka masjid al-iimaan ee magaalada Vancouver ee qoyskana ay deganaayeen qoyskan Soomaaliyeed dhimasho iyo nolol meel ay ku nool yihiin lama hayo waxaan doonayaa inaad ila dhagaysataan haddaba shahaana oo noo sii dhammaystiri doonta halka ay qoyskii geysay ku qarsatay السلام عليكم ها خير ها يا oo kugu soo celinaya live baan ku jiraa muhiimada ilmaha baasiboorka iyo sawirada wax dhan ay soo dirkowde ay abay wiilka inta ku dhashana aniga okay dhagaystayaa waa qoyskii ay kaxaysay hadda sheekhu ka hadlayay soo wada macal wiilka xagga ku dhashay macal adiga waxa dhan ku soo wadayaa dhalashada waxa haya bis wuxuu ku dhashtay digseer ku dhashtay dhalashadiisa haya waxaas oo dhan ka warwana kan xagga ku dhashay bila sharci la'aanta macal adiga macal ilmaha ana ku soo saaray adigu nyamta iide sawirada ii soo dir adreesada ii soo dir iska maxaa dhahaa adreeska karada adigna Vancouver ii soo dir ilmaha sawirada sida ku dhashay ani laakiin fiiri baa Canada ina ku noqdo hatta ma aragtay I'm just talking to you I'm shaking wallahi I'm shaking I'm so scared hal muxuu sameeyay nothing last night I told him I'm gonna walk with my little sister you know walaashay yirista ila joogto haya lugaysa aada asi markasto even if I go to the bakar suuq wuxuu dhaha and meeqasaha soo noqonta why you so late and hooyada gurgeeda aada you know hooyada hadda marka aad inta laguma soo koobi kara gabadhan idan waraysi ka qaadana caawaha moogaanina malay maqlaarto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maasantiin 388 qof baa u daawanaysiin thank you dadka gadaal ka soo galno waa idin salaamay maxaa lagu dhahaa ii sheega gabadhan iyadan waraysan doona caawa alxamdulilah alshukrillah ma hadda koowaad waxay sugnaatay ilaahiga subxaanu qaadirka ahaa maha labaad waxay sugnaatay idinka ducadiina ay soo ducaysiin iyo qofka mas-uulka sare ahaa ee ka soo saaray muqdisho oo igu dhahay hana xor baata elaboorkan dad noolaa iska daa ahe wax walba kaargo dad noolaa kaaga saari kara don't worry okay dad nool baan kaaga saari karaa airportka dhagaha fura dad nool ayaan airportka kaaga saari karaa si fiican u dhagaysta qofka tabarkaaga ma gudi kara meel fiican baa igaga taala waxa ay tusiis inuu Soomaaliya walaal wanaagsan aan ku leeyahay khayr Allah ku siiyo caruurtaada Allah kugu xifdiyo ajirka aad shaqaysatay waana mahadsantahay gabadhaan inta waa la dulmiyay iyada caawa ee maxaa lagu dhahaa ii sheeg hadli doonta alxamdulilah dadaal badan waa ka soo saaray Soomaaliya wadan sifaarad lah baan keenay alxamdulilah alshukrillah ducadii waa maqlasaan afkeeday ku qiratay qoyskaas lala yahay ee ninkii dhalayna looyarka u qabsaday magaalada Muqdisho kiisku uu ka socdo
gabadha xaliime maxamed la yidhahdee looyarada soomaaliya joogta muqdisho ay wado afkeeda inay ka qaratay inay meel ku xasaysay dhimasho iyo nolol laakiin meelay ku sugan yihiin qof caawa caddayn karaa ma jirto ku socotaa maanta way iska nasanaysaa isniinta safaaradda la geynayaa A DWI will cost you about Okay. xayeysiin baa soo $10,000 gashay and possibly so much more. That's a sobering. marka waxaan u baahana waxaa waaya qolada safaaradana email usii diray waxay igu dhaheen karuunihii baa jira meel buu xiran tahay we open 1st August bay igu dhaheen mar inaa idiin sheego 1st August bay igu dhaheen marka maxaa lagu dhahaa ii sheeg waxaan rabaa inaan sadaqa u aruurino caawa idaan wareysanay 1 by 1 waxaa u baahana guri baan u helay meesha aan geey guri baan kaga helay guri kirada waan bixiyey anaa gacantayda ku bixiyay dhib malaha guriga kirada waan ka bixiyey waxay u baahan tahay joodariya waxay u baahan tahay barkimo waxay u baahan tahay waa taqaana qof caruur wata ka oo guri cusub degaya maxaa lagu dhahaa ishak caawa idaa hadlaysa waan soo guulaystay waan faraxsanahay I'm very happy xali ma seexan laakiin chiefkii xalay guul baan soo guulaystay alxamdulilah alshukurlah anigu marka ii kala socno qof walba oo soomaali oo dhiban oo silacsan oo citizen ah ma lagu silciyo ila soo xiriir awal help you wadanka anaa kaa soo saaray kuwa ka badan baan ka soo saaray haddana waan ka soo saaraya balanaan qaaday wax kalmaba qabanaya anigu dulmiga saa u necabahay war ma iska daysaa dulmiga soomaaliyeed maxuu ka faa'iidayaa ilmo yaryar intaa kaxaysid iyo hooyada muqdisho kaysid oo baahi ku dishid waxay ku tiri barnaanka taaganta am scared am shaking why waan ku ogahay walaalkii waad daawan doontaa waad dhegaysan doontaa kawdha horta waxaan kuu sheegayaa 2 rakacato ka ilaahay u laabo ilaahayga subxaanu qaadirka ahaa ilaahaygi subxaanu qaadirka ahaa adna kaa weyn ana iga weyn ayaa noo dhexeeya ani adiga gabadha ninka saan u gala casharka waa loo geynaya anaa og asoo lalaya loo geynaya loo geeya idaawo barsho wanaagsan gabar soomaaliyeeda ahay adigu maanta hadda lagugu samayn laha oo ku hiilin lahaa gabadha adigu baraha bulshada facebookayga nambarkayga ku dhex jira youtubeka nambarkayga ku dhex jira qof walba oo soomaaliya especially caruur soomaaliyeed ee dhiban ee silacsan qof aan kaga hibaysanaya ma jirto adduunka hooyaday baan ugu jeclahay haddii halkaan iisoo firsay ugu tira reerkaan faraha ka qaadi maayo marka alxamdulilah alshukurlah waad mahadsantihiin I'm very happy I'm very proud waa ducadiina shalay ma idin dhahayno waa baashaalina iisoo duceey wallahi dhafraay ma seexan iisoo duceey gabdhaha la ballansana waa 8 saac alla inaan waca waaye waa kasii baxaya qadka I'm very proud of myself alxamdulilah This summer we've given our tech a workout soomaaliyay dhagihiina waxbaad ku maqlayseen indhihiinana waxbaad ku arkayseen qoyskaas soomaaliyeed dhimasho iyo nolol meelay ku sugan yihiin lama hayo haddaba dadkii lahaa caddayn ha la keeno ee haana u doodaya waa in ay weydiiyaan qoyskan halkeed geysa halkay joogaan ummadda soomaaliyeed dhibaatada ay haana abuukar ummadda soomaaliyeed ku hayso oo shakhsiyaadna ugu sacabtumayaan indhihiina aad ku aragtaan dhagihiinana waad ku maqashaan dowladda soomaaliya waxaan u dirayaa fariin in haana gacan lagu qabto waddanka sweden waxaa soo baxay sharci ah qofka basaboor swedishka haysta hadduu waddan kale dembi ka galo waa lagu xukumi karaa waana lagu xiri karaa ha ka warwarina in la yidhaahdo qof basaboor swedish haysta ayaa la xira oo la qabta sharcigaasaa soo baxay dadka reer sweden waa wareysan kartaan meel walba waa laga heli karaa qofka basaboorka swedishka wata dembiga uu waddanka ka galo waddanka uu markaa joogo waa lagu xiri karaa waana lagu maxkamadayn karaa haana qoyskan waxay ka kaxaysay oy dembiga ku gashay
waddanka Soomaaliya caasimadda Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya looyaradii kiiska haysay waa gabadha Soomaaliyeed ee looyarada ee joogta Muqdisho la yiraahdo Xaliima Maxamed aabihii waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho haana waxay ka soo degtay magaalada Muqdisho iyadoo la rabo in la qabto oo la xidho kiiskan loo xidho ayay ka soo carartay magaalada Muqdisho waxa ay timi magaalada Dhuusamareeb arintay u timi arrin la dafiri karo oo la qarin karo ma ahay ilmo yar oo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeeda oo reerkoodii jaamacad ugu direen waddanka Suudaan magaalada Khartoum ayaa si khaldan ilmo yar ku dhashay ilmihii ayay maqashay haana waxa ay adeegsatay gabar la yiraahdo Fawziyo oo dhalatay beesha Isaaq reer abtigay iyo nin la yiraahdo Zaalim oo isaguna reer Xamar ah waxay tiri ilmahaas yar ana adabti garaysanaya oo korsanaya markay magaalada Muqdisho ka soo degtay ay maqashay in kiiska reerkani uu ku socdo waxa ay timi u soo carartay Dhuusamareeb waa maamulka Galmudug waxa lagula kala wareegay ilmihii yara ilmihiina waxa soo waday gabadha Fawziye la yiraahdo iyo ninka Zaalim la yiraahdo idin sheegay ilmo in la korsado waa wax fiican waanad korsan kartaa laakiin haana malaha adarays malaha meel degan tahay ma haysata guri ma haysanta inka ilmaha ay qaado maaha yani ilmo laga saarayo wadankii waa ilmahaas meel uu jaaniga cirib dhigay la heli maayo xaqiiqada dhabta Soomaaliyeed xataa dharkii ilmaha ay u soo gaday waa tii soo gelisay barteeda Facebook oo ay tiri ilmihii ayaan rabaa ilmo markaad adabti garaysanas waddankaas ilmahaasi jooga Suudaan iyo waddanka ay baasaboorkiisa wato Sweden waddan saddexaad oo kale uma dhaxayn karo waa sharciga marka qofku ilma korsanayo uma dhaxayn karo maxaa keenay Soomaaliya ilaahay baan idinku dhaarshay maxaa keenay in intay soo marto Nairobi soo marto Muqdisho Dhuusamareeb lagula kala wareego oo ilmihii halkaa lagu sugo qisada ay meesha u tagtay waa qisada markii filimkeedii uu gubtay waa ay ka carartay waxa ay tagtay magaalada Gaalkacyo dhinaca Galmudug way ka sii gudubtay hadda waxay u sii gudubtay dhinaca Puntland dadka Soomaaliyeed maamul goboleedyada khaasatan meeshay hadda ku sugan tahay horta Somaliland waa laga soo masaafuriyay laakiin meesha ay hadda ku sugan tahay Puntland waa in ilmahaas ilgaara lagu fiiriyo haano markastay waddanka timaado Soomaaliya qorshay ku timaadaa qorshahaas ay ku timaadaa waxa weeye marka ay banaanka joogto waxay gurtaa lacagayow macmacay soo cararay gabar ba aabaheed kufsaday gabar ba adeerkeed uuriyay gabar ba aabaheed uuriyay soo carara marka lacagta urursiyo wixii sadaqa ee loo dirayo waxa ay timaadaa Soomaaliya waxa ay ku timaadaa inay tiraahdo dad baan caawinaya ama ilmaan soo adabti garaysanaya caawintii ay dadka caawinaysay meel ay ku caawisay ma haysan haana case way bilowdaa laakiin meel ku dhamaaday lama arkin weli ilmihii ay tiri waa soo adabti garaysanaya garoon ay kala duushay oo magaalada Muqdisho ama maamul goboleedyada ayaa garan kara ma garan kartaan meel alla iyo meel ay kala duushay ilmahaasi ma jirto ilmahaasi gacanta ay ku dhigtaa magaalada ay joogto Soomaaliya waa dayacan tahay waryaala yeena been isku sheegin Soomaaliya waa dayacan tahay qofka cadaanka ah ee dhakhtarka ah marka uu yimaado ama cadaan yimaadaan waxa loo malaynayaa dad hay'ada oo caawinaya laakiin shaqooyin badan bay u socdaan
ilmaha yar hadda ee gabadha Soomaaliyeed Suudaan ku dhashay si uu gacantiisa ku galaba haana lacag aad u badan bay ku bixisay wuu galayaa okay isu ala ma kugu furaa layga ku soco magacaaga saddexaad meesha joogtay magacay warax maqaali waxaan joogaa wadanka ingiriiska ina adeer qaali horta ninka ilmaha laga qaaday ee weli ilmihiisii fadhiya ee dawladdii ilmuhu ay ku dhasheen oo sharcigooda ay haysteen aan dacwo geynin oo ilmihiisii aan ribood garaynin horta asagu dambi uu ku jira arrimaha berri subax aad gudbinaysa ku dar baxar asaga hadda ku jira wuu ribood gareeye okay hadduu ribood gareeyey waa inuu dacwada adkeeyo kululeeyo oo yiraa aniga ilmahaygii naagtii waatan baasabor Swedish ay wadata ilmahaygii meesha geedana balaas Swedish inuu ka dacweeyo oo dacwadeeda baasaborkeeda loo gudbiyo wadanka Sweden waaye xamarna hadday ku dhaaftay inuu hadda si degdeg Puntland ugu tiro fartin oo dawladdu ay Puntland la hadasho dhaha naagta hal soo qabtay laana naagta xamar kama dhoofi karta hadda waxay isku daya diyaaradaha Puntland ka baxa oo Djibouti taga oo Djibouti ka baxo Dubai taga inay raacday rabta marka ina haddeertan Puntland naagta laga soo qabto ama hadday galmudug joogta la soo qabtay hadday Puntland joogta la soo qabtay xamar lagu soo celiyo waay ninku laba bilood ilmihiisi maqan yihiin asaaba xanuunsanba ninku marada dhexdeeda ku xirto naagtii 3 ma 4 maalmood xamar la joogtay maha uu ka iskala hoteelada qaaliga ka horleed inay hormar marto waa qalad balaas naagtu kaligeed ma shaqeyn aeroboorka lagala shaqeeya booliiska lagala shaqeeya dawladda lagala shaqeeya isra weera shaqaaluhu jooga kaligeed ma shaqeyn ka hadaladeeda ka dareemay hadaladeeda ka fahmay dadka shacabka ay lacagta sida adeegsay ka shaqo dawladda la shaqeeyda nafteed okay arrintan cabdi xakiin wax laga hari kara maahan wax la fiirsan kara maahan waa isdaba joog waa naag faasiqada oo haddana Soomaalidii oo dhan oo wada muslima maskaxda uga tumanaysa dadka maxaa ka khaldan hal week aan Soomaaliya dagaal kula jirnay anagoo 40 qofood ka badan oo qurba jooga qof walba wuxuu ku leeyahay dambiga anaga magaalada nagu kuma galno qurba ay ku soo gashay maxaan ku qabsanaa maxay naga hadlayda lagu leeyahay ilaa markii dabaan ciyaalkii naga inta ku dirnaan tuuriyay anaga idin bay garayna tuuriyay ka saara tuuriyo uga saara magaalada war ina adeero gacali wax nool meesha alaaba hadda ka jooga inda aniga ii muuqdee ninka berri horta asaga hala ii raadsaday asaga naftirkiisa hala ii raadsaday wariya ilmahaaga haddii kaliyood already naagtaan ay bilashan boqol kun soo qaadatana hadda isdhiib haddii kalena naagta Soomaali kula joogta ay kaa fakandhe waa maadsantaa buu macaan waa aad adaa mudan dawladda Soomaaliya haano dhaqdhaqaaqeeda waa la socdaa ilmaha yar ee halka lagu kala wareegayna waxaad ogaataan ilmahaas isagoo nool inaanu ka dhoofin garoon diyaaradeed oo Soomaaliya laakiin qaabab kale ayaa lagu saaraya afkeeda waxay idinka qirtay waxay tiri dad nool haddaan rabay tiri airportka waa layga dhoofinaya taasi waxa ay dhaawac ku tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya dad nool haddaan rabay tiri haana airportka waa layga dhoofinaya waa laga saaraya Soomaaliya maamulka Puntland waa in gabadhaas gacan bir ah lagu qabto waxaan la hadlayaa qof noo joogay Puntland السلام عليكم وكنت جرت لايف كسامها بعدما أتجوكت قروي سيلو قد ديار قروي بيناكي هنا أبو كر لا هذا الشعب الصومالي والله ديار قروي وانا لما سافرونيا وانا لقبانيا waxay wadana waa laga hortagaya xaaladeeda seel looga arkaa magaalada caasimadda Puntland ee Garowe aad baa loola socdaa xaaladeeda aad iyo aad waana loo diyaar garoobay hay culima diinka iyo ma ka hadleen arrintan
arrintaa waa la wadaa galmudugna way iska soo ceeriyeen marka saasay dhinaca puntland usoo aaday wax dowladdu iyada wax dhaqdhaqaaqa dowladdu shacabku waa kaceen laakiin dowladdu say u aragtaa naagtaan dowladda laftigeeda waa ilgaar bay ku haysaa waa lala socdaa dhaqdhaqaaqeeda ma laga yaabaa inay jiraan shakhsiyaad puntland jooga oo la shaqayn kara iyada howlo la wada way dhici kadhaa okay aad iyo aad baad u mahadsantahay waa ku salaamaya ummadda soomaaliyeed maanta wax idinka qarsoon ma jirto waxaan halkan kala hadlayaa kaltuun cabdilaahi inaabtiday iyo daahir calaso oo labadooduba xaqdarro ugu doodayay hana abukar wax kaloo dhan maanta meel dhiga wax kale oo dhan maanta soo laalaaba weydiiya meesha ay geysay qoyskan ee ay ku sugan yihiin 4 carruura iyo hooyadood afkeeday ku qiratay maysan dafirin in iyadu ay meel geysay waxaad maqlayseen aabbihii dhalay inuu ku sugan yahay magaalada muqdisho looyarad uu qabsaday reer Vancouver iimaamku waad maqlayseen bal telefoon maanta u diro waxaad tiraahdaa ama soo fariisiye 4 carruura iyo hooyadood xagay jaanay cirib dhigeen waa kaltuun cabdulaahi oo taageere dhagaa iyo indhala u noqotay iyo daahir caliso qofna dulmi saaxiib kastaa tihiin dulmi laguma taageero ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan fariin gaara waxaan u dirayaa hooyooyinka soomaaliyeed ee degan waddanka Sweden aad baa ila soo xidhiidheen arrimihiinoo dhanna waa ii sheegteen laakiin mid ogaada la tashada dadka luuqadda aadka ugu hadla Swedish ee idinla deganay Soomaalida haana wax idinka qaadi kartaa ma jirto wax alla iyo waxa idinka qaadi kartaa ma jirto ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliyeed maalin dhaweyd ingiriiska wixii ka dhacay baan idin geynayaa marka ay maqasho gabadh baa isku buuqsan oo stress ku yara dhacay ii geey ayay tiraahdaa ciyaalka ma hayn kartee ila dhageysta arrintan ila dhageysta okay 15 daqiiqo iyo 10 okay jina ma taqaana qof hadis way sida psychologist aad u hadlaysay waan daawaday anigu kulama socon jirin laakiin intaanan okay ingiriiska weeyaan arrintan qisadan ay ka dhacday waa maalin dhaweyd markii intii ayna soo bixinin waxa ay maqashay gabar baabuur waday oo laysanka ku cusbaa ayaa gabdho kale right siisay qaaday meel aroosa fiiriya Soomaaliyeed gabadhii ayaa directionkii ka luntay markii ay ka luntay ayaa waxa la xalay gabadhaasna qaado way luntay waxaan ka saalay ninkii baa la guursado way isku buuqsantahay stress bahay aabay tii ii sheega adreeskeed dhageysta Soomaaliyeed ka soo duubay horta qofka tahay baan dib ugu noqdo YouTube-kaaga waan galay waxaad ka hadasho dhan waan soo daawaday okay walaalay Soomaali waxay ku mahmahdaa afkaagan oo ku xidha oo aan ku furin la iska gooba la yiraahdaa haddii wax aad sheegaysa ay run ahaayeen hanay isa soo barxo adigu soo fadhiiso soo dhig iskeen dadkaad keentay runtoodii keen waxaad lacagaha lagu haystay runtooda keen habeen dhawata waxaan daawanaya iyadoo lagu wareysanayo one single question kama jawaabine sida qiiqaad saa u meereysatay su'aal ay marka lagaa weydiiyo diibaad aadi you know termal maxaa ka dhacay baa lagu yiri waxaad ku jawaabtay gabadha film baan ka qabtay bahalkii baan geliyay YouTube-ka ha igelin bay idhahday lacagta ma laygu leeyahay yes or no hatta kama bixin walaali anigu kuma oranayo muxuu ahaayay Soomaalina gambarkeedaan ku fadhiisinaya adigana gambarkaagan kugu fadhiisinaya adiga gambarkaagan kugu fadhiisinaya walaalo haddii aad dambigan gelin isbarax okay sug okay inaabtida kaltuun baa soo gashay reer buuco anaa haya meeshay joogaan iyo cadayntiiba way fiican yihiin waxay sugayaan in la soo celiyo kaltuun cabdulaahi waa soo jawaabtay waa soo gashay anaa og bay tiri meeshay joogaan waana la soo celinaya waana fiican yihiin
kaltuune ma kula saxsan tahay aabba soomaaliyeed oo qoyskiisii u kaxeeyey soomaaliya in habar suraafada oo homelessa oo dibad wareegaysa intay qoysku waxyaalaha ay kaltuune haana samaynayso ma weydiisay gabadhii aabbahaybaa i kufsaday oo aabbahaybaa i uureeyey tiri ee london kula joogtay ereygay ku jawaabtay wuxuu ahaa dadku isaga isoo wacda isaga ayaa isoo wacda marka inaabti taageerayn dhalaha noqoni ilaahayna ka baq ilaahayna u noqo okay ma socon jirin laakiin intaana haddii waxa aad sheegaysa ay run ahaayeen hanay isa soo baraxo adigu soo fadhiiso soo dhig iskeen dadkaad keentay runtoodii keen waxaad lacagaha lagu haystay runtooda keen habeen dhaweyta waxaad daawanaya iyadoo lagu wareysanayo one single questionna kamaad jawaabine si daqiiqaad saa u meeraysatay su-aal ay marka lagaa weydiiyo dii baad aadi you know jarmal maxaa ka dhacay baa lagu yidhi waxaad ku jawaabtay gabadha filim baan ka qabtay bahalkii baan geliyey youtube-ka ha igelin bay i dhahday lacagta ma laygu leeyahay ma lagugu leeyahay yes or no xataa kamaad bixin walaali anigu kuma odhanayo muxuu ahaaye soomaalina gambadhkeedaan ku fadhiisinaya adigana gambadhkaagaan kugu fadhiisinaya adiga gambadhkaagaan kugu fadhiisinaya walaalo haddii aad dembigan gelin isbarax isfurfur anu ma hadla baa tidhi habeenkii dhaweyto oo ma waxaan hadal ahaynba dadka soomaaliyeed guryahooda ku gashay haddaama xafiis baad lahayd oo waa lagugu yimi haddaama waraaqaad soo qortay waad hadli jirtay ma hadla baa tidhi habeenkii dhaweyd I wish in aan ka hadli lahaa meeshii laakiin may suurta gelin anu ma hadlaad dhahday hadal baad dadka soomaaliyeed ku soo jiidatay qaraabay macmac baad ku soo jiidatay waana lagu aaminsanaa gabadh wadaniyada oo markii hore khalad rayd rom bath haysatay oo haddeerta dadkeedu u timid oo xijaab usoo xidhato calankoodii huwano waxyaalo aan la ogeyn oo dadka hidhanka ahaa sheegaysaa lagu arkay dadka soomaaligaana waa dad masaakiina soomaali waa barta waa dad masaakiina oo laga dhaadhiciyo haddii wax kasta laga dhaadhicin karo oo very softy ah oo daacad ah waddankooda maadaamana mujrimnimo ka dhici jirin kama rumaysan karaan dadka kalena inay ka dhacdo ilaa hadda waxaan leeyahay weeye albaabadiina ballaqan xidha oo dadka hawada aaminina walaalay marka waad hadli jirtee haddaad tidhi ma hadlo waad hadli jirto dadkaba waxaad ugu tagtay waa hadale ma rabno in lagugu xadgudbo adigoo inasan ah haddii aad leedahay inasan baan ahay soo fadhiiso adigu oo waxaad tidhaahdaa soomaaliyay dhegayso one by one soo dhig tii lacagta kugu lahayd hadday kugu leedahay soo dhig haddaanay kugu lahayn in details baa lagaaga rabaa inaad ugu hadasho ma aha qof kale oo adigoo kale ah oo ku jira youtube-ka ku jira isaguba ama facebook soo fadhiista inuu istiraahdo bari yeel arrintaasi ragaadkay kugu fogaysay arrinta habeenkii dhaweyta lagu waraysanayay I think waxaad ka hadasheen ood isu geygeysateen in lagu waraysto oo bari lagaa dhigo laakiin way kugu fogeeyeen ragaadka anigu reer baadiye geel labaan ahaan jirayo ragaad waxaa la yidhaahdaa geel qodaxda mudda markaad adigu isku taagto qodaxda markaad saa isugu taagto iyo markay saa kuu muddo way kala dheeraysaa saa markaad isugu taagto in dheer bay lugtaada gashaa laakiin markay saa kuu muddo waxa laga yaaba markiiba saa lagaaga soo gooyo xabiibta marka waxa weye arrintaasi kolley aniga fakerkayga dhaawacii horey dhaawac kuugu sii dartay waayo psychologically si aad u hadlaysay iyo behaviorkaagii answerkaad ku jawaabaysay everything was fake bay ahaayeen wax runana may ahayn anigu marka way dhici kartaa psychologically waxaan laba arrimood baan kugu qiimeeyey aad baa lagu aflagaadaynaya oo lagu caynaya oo cirdigaagii loogu xadgudbay oo jiritaankaagii lagugu xadgudbay oo wixii aad tidhi waan ka baxay iyo adiga iyo qaawan baa lasoo dhigaa qofka marka waxaasi ku dhacaana waxaa ka lunta kalsoonida waxaa ka lunta wax badan baa lagugu samaynaya aan u jeedaa waa waxaan qof bini aadana ku dhicin oo aad u xun arrintaasi inay ku dhaawacday oo kalsoonidii kaa luntay iyo in aad waxaan laguu sheegayey wax laysu geegeeyey ay ahayd oo aadan birbeer ahayn okay labadaa arrimood midkoodba arrinkaasi wax kaa soconayo kaa gadmaya ma aha laakiin walaalay waxa weeyaan anigu runtii waan kuu damqanayaa raallina kama ihi sida lagu jiidjiidayo in adigoo sawir aad leedoo la qaawan la keenana kor biliseed kabays ma dheera xitaa haddaad khaldan tahay waa lagu khaldan yahay in saasoo kale lagu bahdilo gabadh soomaali baa tahay mahmakaan wax kastoo dhacay waxa weeyaan qofka naftiisoo la gooyo baa ugu weyn wax gaadha naftaada
حتى نف جويسو تدينتو waxay kugu xukuntay baa waajib kugu ah laakiin waajib kugu ma aha in lagu jiijido cirdigaaga lagu xadgudbo adoo qaawan lagu soo daadiyo waxaad mid labaad sawirada hadii aad haysatay oo ka toobad keentay waxaan ka filayay inaad ka saartay social media-da oo cadawgu ku adeegsan inaan lagu adeegsan baan filayay wixii xun wala aad ka baxdo waa laga tagaa waxa soo socda dhageysta hadii kugu jiraan ba Facebook Soomaaliya waxa soo socda dhageysta you are devil person there waxaas inay kugu jiraan bulshadu daawato iyo inaad qofkan tahay imika qof baa ina abtiday kaltuun yaan lacay wariyaa hoy ugu ixtiraama walkan ana iskale gabadhaas waa ina abtiday qof caay kara ma jirto qofkii kaltuun caaya waa balogaraynaya waa idin sheega igu ixtiraama gabadhaas waa ina abtiday ma caay karta eraxuna ma oran karta yes fikirkeedu xor bay u tahay laakiin hadday khalad leedahay waa loo sheegaya laakiin yaan la caay qofkii caaya waa balogaraynaya haddaba waa idin sheega xataa saaxiibkay dhow haddaad tahay oo caydid kaltuun balog bata waa idin sheega ha caayina please laakiin hano come on raali kama hi anigu ma garanaysaa marka walaalo hadalkayga ha u fahmin inaan ku kirtaas garaynayo laakiin nasteexa waxay iiga tahay qofku khalad uu galaa arrimahan aad gashay haddii ay khalad yihiin oo ay kaa dhaceen oo wax aad khalad ahoo bulshadan aad ka gashay ay yihiin ilan ilaahay baa inoo maanta dhaweyta waxaa tiri habaara dadkii aad ugu nuuxnuuxsaday baan ahaa inaan aad ishabaartay anna aan aamiinta kuugu daro ilaahay baanan ka baryayay waayo waa arrin aad murugadeeda ule waxa lagaa sheegayo haddaad ummadda ku samaysayna dee xitaa hadday dhagax kugu diraan ay cadcad kuu gooyaan sumcaddii soomaalidu ma soo noqonayso laakiin in allaha qafuuru raxiim haddii aanad samayna waa wax aad u khaldan dhaawaca adiga naftaada loo geysanaya ma fahmaysaa hanay marka isa soo muxuu ahaayey isbariyaan adigu soo fadhiso gabadhii shalay la hadlaysay baa tahay dadka gabadhii shalay dadkoo dhan maalintii soo geli jirtay 3 goor baa tahay maanta inaad tiraahdo aniga ma hadlo ma ogtihiin no it's not gonna work waad hadashaa Soomaali waxaad ku dhex gashay guryahooda oo iyagoo South Africa jooga aad Sweden u dhex galaysay YouTube iyagoo Soomaaliya jooga waxaad ku dhex gashay hadal weeye iyagoo London jooga adoo Sweden jooga waxaad u dhex gashay hadal weeye come on talk now waa inaad hadashid waa inaad tiraahdo war dhagaysta Soomaali hal mid way ku xun yihiin halna way ku fiican yihiin waa dad la dagi karo oo dagan oo qof intuu u yimaado ilmahooda inuu iyagoo saa u soo tagan ka qaado waa laga yaabaa habacsani haddayse kugu soo jeetaan waa jinaca ma taqaanaa qof haddii subag la mariyo quraanjada dhex fadhiisiya ka waranta dharka laga bixiyo midba meesha soo gaadhu ku qabsanaya xitaa iyagoon ku hubin iga wallaan ku dhaartay nolosha kugu dubayaan ku ducaysa ilaahay Soomaali inuusan kugu soo jeedin iyagoo xun wajigooda xun alla kuguma soo jeediyo ma fahanti you're not gonna survive in this way walaalo meelaba kuma dhuuman kartid laakiin waxa laga rabaa waxa weeye dadka Soomaaliyeed waa dad naxariis badan oo waliba calool furan inaad tiraahdo waryaana dhageysta anigu waxa fiyo baan ku raadinayay cidna ma arag cidna ma maqal waxna idin kama fuulin waxna idin kama iibin kaliyana ma cunina iga taga oo idaayo cafiya way ku cafinayaan waa dad calool fiyo inaad wixii cad keentid oo tiraahdo walaalayaalo muxuu ahaayay anigu waan khalda muxuu ahaayay khaladkan waan arkay waxaan u ahaa yani you promoted yourself lacag baad ka ururisay kanaad yeeshay hooyaad leedahay ilmaheedi ma tarbiyad taqaano who do you think you are markaad leedahay hooyadu ilmaheeda ma tarbiyadayn taqaano annaga ilmihii markiiba waa arka waa isfahanay oo so what ilmuhu dee haddaad doonayso bannaanka inuu ku cayaarad hooyadii ka fidnayso that's what the babygu rabo so haddaad ku tidhi ilmaha ma aha in gurigiina lagugu yeedho xaq baad u leedahay inaad cayaarto straight away he will understand you waliga adigoo gabadh yara bannaanka ma u cararta oo inaad soo cayaarta ma rabtaa labada kamood baanu gacmaha ku qaadi jirnay afarta xaafadoodna inaanu kasoo jawaabtaanu doonayna markaanu yarayn haddii qof bannaanka istaago idhad hooyada maxay kuu dilaysaa ha u tegin dee qofkaas allaha baryartani fiicana qof walba wuu daba dhiganayaa saaxiibay marka waxaan justification ka dhigin Soomaali culimay leedahay waa dadka leebariina iyagoon wax qorin waxna akhriyin bay caqli iyo fikrad fiican leeyihiin ma aha dadka hurde nationada kale oo kale ma aha dad la abuse gareeya ma aha hadday kugu soo jeestaan waxaad kaliya oo ku dhex joogi kartaa oo sumcadaadi ku soo celin kartaa one of the two inay ku cafiyaan
iyo inaad wixii aad gashay adigu isbari yeeshood labadaa un adu kala bixiso magacyo laakiin ma wax loo malacsiin karo even though ay qaar ku waayaan meesha tagtaba alla waatan tiibaa ku hortaalla sida tukahay kugu ciyayaan sida tukaha ayay kugu ciyayaan ma fahantay hanay isbari yeel soo baxanoy waliba waxa weeyaan haddii aad maanta la timaado wax la garto deeda waxa weeyaan waanu iskaa garab taagaynaan waxaanu leenahay hoy ka hadha ilan gabadhu qabiil kale yeelan mayso qolo kalena yeelan mayso nation kalena yeelan mayso soomaali bay ka dhalatay samaanteed iyo xumaanteed hana waa soomaali baan leenahay ee ha loo dhibriyo laakiin inaad wixii hore burush kusii darsatid soomaali wallahi siraan ka hayaa hadalkan kaa diidaa saasa soomaali sir badan baan ka hayaa na qof kastaa ceeb buu leeyahay ceebta dadka adaa baadhbaadho lacag ku raadiyey hanay soomaali nation aan ceeb lahayni ma jiro ceebaha dadka albaabadoodana adaa garaacay we don't want dadka in loo dhaafo ma fahantay haddii la hadlo heedhe saaxiiba intaanan xoogayga wax ku xoraynin afkayga wax ku xorayn kara anigu dadka soomaaliyeedna inaad tidhaahid ceebahoodaan hayaa ceeb maanta taadii baa taala muxuu ahaayey bannaanka soomaali hooyo iyo aabba miidhan weeyaan wiil iyo walaal weeyaan gabadh iyo abtigeed weeyaan ceebna ma laha markaad leedahay ceebtoodaan hayaa adaa raadiyey ceebta oo lacag ku raadiyey no way waxyaalahana waa kaa qaadanayna waxna lagaama qaadanayo dadka soomaaliyeed ceebtoodaan hayaa waa wixii lagaa raacay weeye hana kuulamay talin dadkii aad la tashatay may kula talin kas markaad tirahay soomaali ceebteedaan hayaa am one of them soomaali baan ahay harurtayduna waa soomaali ma fahantay this is my duty inaan soomaali difaaco soo markaad tiraahid ayagoo markii hore ceeb kugu haystay oo gabadh iyo aabaheed baa isfuulay aad tidhi oo muxuu ahaa diinta islaamkuna bartay walaaluhu xataa isumaha moodaan wiil iyo aabi gabadhiis daaye haddaad dhahdid maanta muxuu ahayey soomaali ceebteedaan hayaa dee you threaten on us mana kaa yeelayno saaxiib qualificationkaaga ani maanta haddaan idhaahdo caafimaad baan sharaxaya qualified baanu ahay googleka igeli magacayga saddexaan haddeer idinkoo dhan wada geliya waa qualified nurse london bay degan tahay jaamacaddaasay ka baxday caafimaadkan doona haddaan soo dhigo maanta qof igu qabsan karaa maad dhiganin ma jiro psychologist baad cayaartay ma fahantay hay-ad baad noqotay NGO oo dadkan caawiyaabaad tidhi psychologist baad iska soo dhigtay hanay muxuu ahay wadaad baad iska soo dhigtay hanay wax kasta soomaali waa toob kasta waa u soo gashatay ma fahantay saaxiib haddaad soo gashatay khalad waad geli kartaa absolutely laakiin maanta marka lagu yidhaahdo waran inaad tidhaahid soomaali ceebaan ka hayaa ma og tahay oo aad tiraahdo la yidhaahdo waa la bajinayaa no albaabka anagaa taagan saaxiib this is a somalian door anagaa taagan ciddaanu ka furnaana way soo gelaysaa ciddaanu ka xidhnaana waa laga xidhaya hadday saa noqoto mana ogolin ma fahantay dulmi in lagugu sameeyo wallaahi ma ogoli aad baan uga gubtay sawira qaawanta haddii lasoo dhigo waanan karbaashi doonaa waad i dhegaysan doontaa ma fahantay in adiga lagu dulmiyo ma ogoli yaa imaa shicibka soomaaliyeed in la dulmiyo ma ogoli in lagu joogsadana ma ogoli dee ma fahantay damiirkaygaa isiinaya taa inaan diido adoo shalay lagugu haystay hooye iyo ilmaheed inaad isku dirtay adoo shalay lagugu haystay aabe iyo ilmihii inaad tiri muxuu ahaayey way iskoreen adoo shalay waxaad soo dhigtoo dhan aan daawaday haddaad maanta kusii dirtid ceebihii minaan hayaa markii lagu yidhi naqanci gabadha yara 23 jirkii ooyeysa iban muxuu ahaayey waxaas ma soconayaan walaale kaama soconayso hanaay isbarax waxa weeyaan war waxaanaan galay dheh war waxaanaad ii sheegaysaana run buu ahaa dheh liqi waaba xigta ma fahantay marka taa horta hanay adaa iskale jawaabteedana saaxiib soo bixi laakiin qaladkii hore qalad ha ku siin waa barayfadkaaga adaa leh haddaad tiraahid barayfad lifekayga ma soo dhigayo laakiin hanay waxa weeyaan waxaad tiri barayfad lifekayga soo dhigi maayo ma fahmaysaa barayfad lifekayga ma soo dhigayaa tiri carruur baan leeyahay ma soo dhigayaa tiri good nin baan leeyahay ma soo dhigayaa tiri waa sax waan kaa ogolay anigu I agree with you why baad u soo dhigaysaa hooyo soomaaliyeed iyo reer soomaaliyeed barayfadkooda nolosha markaa why macnihii bal fakir reer soomaaliyeed baad soo dhigaysaa hooyaad ilmaheedii iyadii isku diraysaa ilmo yaryar baad waraysanaysaa waxaad leedahay aabaheen baa i koray dhaha sidanaad yeelaysaa why baad barayfadka ceebta dadka taadana u qarinaysaa dadka soomaaliyeedna u soo dhigaysaa why ma iiga sheekayn kartaa guurkii baad gabdhihii u qoonsatay oo markii la yidhi carruurtooday fuulayaan bad raggii dumarkii saa isaga hor keentay ma fahantay aabahoyaashiiba ilmahoodii baambarka ka bedeli waayey oo la yidhi naarmu odaygu muxuu ahaayey si kale noqdaa ma fahantay saaxiibey haddaad adigu ceebtaada
private-kaada iyo personalkaaga u diiday social media-da waybaad qoys Soomaaliyeed tiisa usoo dhigaysaa markaa waaye waybaad u leedahay ceeb baan idinka haya sir baan idinka haya taadii haddaad asturatay waybaad mid kale u faarfaaraysaa markaa bal iyaga soo jawaab wow this is very clever waxaad leedahay it's the same time baad waxaad leedahay anigu social media-da ninkayga ma soo dhigayo anigu social media-da ilmahayga ma soo dhigayo and you following another family's ceebtiisa inaad soo dhigto ood hooyo Soomaaliyeed kaga oohiso ood hooyo Soomaaliyeed kaga cadhaysiiso ood abba Soomaaliyeed kaga cadhaysiiso ood gabadh wiil Soomaaliyeed kaga cadhaysiiso ood gabadh Soomaaliyeed kaga cadhaysiisid I know what you did when you were in London dhageysta ma fahmaysaa way baad ceebta dadka u raadinaysaa marka waxaad soo sheegto dhan waa ceeb waan ku daawaday 3 cashan kugu maqnaa waxaad soo sheegtay waa wada ceeb aniga sidana la iyaalay haye habar yaro aniga sidan kana la iyaalay haye ana sidana la ii galay haye waayahay adigu marka ceebtooda marka raadinaysid yaa ku siiyay sharci taadiba waa adiga qarsaday hanoy hano waxma kuu sheegaa laba goor fikir stresska iyo ka tanbadin xabiibti ma fahanti si fiican maskaxda uga shaqaysii haddaadan doonayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi haddii aad ceebaha dadka doondoonto aniga ceebahaaga doondoonaya qof bini aadana ceebtiisa haddaad qariso aniga 12 ceebood kuu qarinaya rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa nagu baray you know maanta waxa kuwa aan waxna qorin waxna akhriin kuugu soo digaafayaan oo sawiradaada u wada sitaan oo saa lagugu duulinaya waxa weeye ceeb ilaahay ugu talagalay in la qariyad banaanka keentay adna waa lagugu soo saliday dadkii haddaba imika soo ma fahmin marka walaalay ceebaha dadka haddii la doonayo in la waxa soo socda dhageysta idinka yaabi doone oo aadan taada rabin inaad soo fogtid may ahayn ma garanaysaa waxa weeye maantana anagu waan ku bari yeelaynaa haddii aad bari tahay dadka inay kaa hadhaana weeye inay ku xumeeyaan gabadh Soomaaliyeed baad jidkaaga wuxuu noo tarayaa ma jirto laakiin waa inaad aqli ku dartaa waxa aad leedahay breefadkaaga hayso waxaaga hayso laakiin sanduuqyadii aad adigu soo gaday ee aad ceebta dadka ka buuxisay ee aad YouTube-ka ku kurtay ee aad muxuu ahaaye adigu geesiyada ku ahayd maanta laga rabaa luqluq maro xamar ku xidhan jireen laasim laamigaas imaana layskama cafinaya day taasan ka odhanaya horta walaalay adiga hadalkaagii baanan kaaga wada jawaabin adigu aad tiri ma fahmaysaa maalintii dhaweyta London baa timid tukaan ku yaala straight ham baa tagtay gabdha Soomaaliyeed baa sheekaystay adigu waad la joogtay shaqana kuma aan lahayn guri aad ku soo degto reer Soomaaliyeed weeye wax allaale wax dhiba oo arinta adigu shaqo kuma lahayn barta ka dhacday laakiin khaladkaad ku lahayd laga qabtay gabdhaha Soomaaliyeed isku ka tageen baan ku sheegaya hanay wax saxana ma aha ma fahant gabdhihii arooska tagay oo arooska habeenkii isu raaceen gabadh baa qaaday gabdhaha markii arooskii dhamaaday gabadh baa gabdhihii qaado lift siiso tiri meel baan idin geynaya gabadhuna nayu driver bay ahayd ma fahmaysaa nayu driver bay ahayd gabdhihii ay qaaday gabadhii wadadii bay kala luntay wadadii markay kala luntay xaafadii lagu tagi lahaa 20 minutes waxa lagu tagay 1 hour waxa lagu dhahay hanoy aroortii bay gabdhihii sheekaysteen alla xala waa lunno heblaana la luntay alla heblaha marna waa driver cusub haddana way yar hinaasantaho odaygii baa la guursaday xogaa miskiintu way wareersan tahay maxaad ku jawaabtay adreyska naagtay siiyay telefoonkeeda ilmaha ma hayn karta mar haddii ninku la guursaday oo yaa ku yidhi adiga xukuumadda noocaas sameehanay I know London bay ka dhacday ma fahantay in yar baan ku sigtay albaabka kub inaan kuu soo siiyo on ku dhaado adigu dawladeeba kugu shaqaalaysay inaad tan samayso laakiin good point gabdhihii Soomaaliyeed ee meesha joogay geesiyiin bay ahaayeen geesiyiin saasaa la idinka rabaa gabdhaha Soomaaliyeed naayaa baa la yidhi saaxiibay sheekada yada ka dhex faa'iidaysanin gabadhan iyo gurigan iyo reerkan miyaa taqaanaan ka hadlayno maya anaga miyaad taqaanaa maya reerkan miyaa taqaanaa maya maxaa kaa gale wixii isguursaday naafkaaga xidh baa la yidhi halkaasay kaa saareen waan ku ogahay walaali macaali marka waad fogaatay you gone too far ma fahantay maanta marka inaad jawaabtid baa lagaa rabaa okay Soomaaliya dhageyna ku maqlaseen Soomaha maqlaseen waxa idinka qarsoonaana ma jirto barnaamijku waa soo gabagabeynaya
waxaan kusoo gabagabaynayaa maamulka Puntland waad maqlayseen maanta waxay ku sugan tahay Puntland bay ku sugan tahay magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland ilmo Soomaaliyeed oo islaantaasi kala dhoofiso garoon Puntland hadda aragtaan dowladda Puntland waa inay qabtaan haana waa in telefoonkeeda iyo computerkeeda la baara damage ay geysatay intuu tiro leeyahay waad u jeedeen waa maqlayseen Soomaaliya wax idinka qarsoon ma jirto wax idinka qarsoon ma jirto qisaday u timi Soomaaliyana waa ilmahaas yar ee gabadhu Suudaan ku dhashay ee loogu keenay magaalada Dhuusamareeb markii reer Dhuusamareeb ay ku kaceen ay caydiyeen waxa ay gashay dhinaca Puntland Somaliland waa laga soo masaafuriyay oo ma gali karto maamulka Puntland waa in il gaar gabadha ku feeriyaan kiiska ka socda magaalada Muqdisho aabaha Soomaaliyeed ee afartiisi caruur hadda kaltuun waxay soo qorisay Burca la geeyay ilaahay baan idinku dhaashay nin baa caruurtiisi iyo xaaskiisi inta la qaatay meel jaani cirib ay dhigeen la leeyahay waad maqlayseen imaamkii masaajidka magaalada Vancouver marka dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa haano gacan bira waa in lagu qabto wadan passport Swedish wadata waa lagu dhex maxkamadeyn karaa wadanka Soomaaliya sharciga Sweden waa ogol yahay ugu dambeyn aydu mada salaam ya dhamaantiin alo waalaikum salaam xagee ka soo magaca walaal xagee ka soo hadlaysaa dalka Canada Alberta waa ku jeedaa haye wallahi Cabdixakiin oo horta qisadu qasayar maaha hadda gabadhii caaliye ee hadlaysay waa gabadh maaragtay saalixad oo Soomaaliyeed dab ama garad haye waa gabadh aan gabdhaha beenta ku kaftaba ahayn oo runta gabdhaha sheega weeyaan hormoodka Soomaalida wacyigeliye ee xagga fayraska waliba ugu horeeyay weeyaan haye aad baan halkan uga salaamayaa caaliye oo gabadh aad iyo aad ma sha Allah tabarakallah gabadh aan jeclahay ku jirtaa ee muriyaha ku jira Cabdixakiin oo horta dib meesha uu ka dhacay been badanna media waa laga sii daayay oo hana xageeda ka soo baxday sheekooyin aan hore u soconayno badan laakiin ilaahay dartii hadii la isaga hara ka war okay walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay ma sha Allah ilaahay dartiis in looga haro waa fiican tahay wax walba oo ilaahay baa ina abuuray laakiin walaalay ilaahay baan kugu dhaashay damajyada ay geysatay hadda qisadii hore aad maqlaysay afar caruura oo aabahood ka raray magaalada meel ay jaani cirib dhigeen lama hayo number 1 number 2 walaalay gacaliso social media haano tan iyo maalintii lagu dhigay ee arrinteeda banaanka la soo dhigay soo cararay aaba gabadhiisii kufsaday gabadh baa walaalkeed uureeyay way joojisay marka walaalay ma waxay kula fiican tahay in qofkii uu bulshada ku sii dhex wado maya horta aniga kula hadlayaba gabadh family-gayga sheeganayso lafta aniga aan ahay raabta ayay soo dhigtay gabadhay dhahaysay adeerkay baa uureeyo reerabtigana waa idagala qolada reeabayna waa idagala qoladaas waa family-ga anaga qoyskaana waa gabadha aan isku qabsanay arrintaan isku qabsanay nimcadagan igala soo hadashay bay ahayd okay gabadha nimcadagan kaala hadashay maxaa reerka family-gaas anagu nahay mana garanayna meel ay ku jirto waxaas wax jira maaha marka walaal adigoo og damage-ka ay geysatay aniga iyadu best friend baanu ahayn asxaab baanu ahayn sawirradayda soo dhigi jirtay laakiin markii Cabdixakiin oo anigu hadda kula hadlay maalin horena meeshaad waan ka hadlay aniga iyadoo ay soo wacday igu push gareynaysa inaan qof iska dhigano baan ku idhaan qof Soomaaliya been kama sheegayo waxaan jirina media Soomaalideeda u marin maayo iga qalee baan ku idhi ma garan oo yani seebay ku soo wacday kula hayd qof iska dhig waxay ii soo wacday kulli gabadha kalena way ismaqlaysaa gabadh maana soo joogta bay igu tiri baa gabadh sheegaysa inay haysato gabadh ayna dhalin gabadhaasay doonaysaa in la sheego adigu iyadu maxay u hadli weydaan ku aniga maxaan u sheegayaa marka maadaama aynu aragno horta qiso badan bay samaysay maantana godkeeda biyo ugu galeen qofta mana ma taaban doonto haddii caqli leedahay dee hore okay walaal gacaliso adigoo intaasoo dhan og ma waxaad tiri ilaahay dartii ha lagu daayo waa wax fiican in ilaahay dartiis wax walba looga tago laakiin damage ay ummadda u geysanayso okay go ahead damage ay ummadda u geysanayso adigii hadda ilaahay dartii ha lagu daayo walaalo oo i waaninayo ma sha Allah ayay kugu dayday inaad been sheegtid aan hadla markay horta faaxishay geysatay wax faaxishaa ma garat faaxishada ay geysatayna wax laga soo waaqsan karo maaha dunida waxay noo marisay aabbo Soomaaliyeed oo gabadhiisii
waxeeyayo ilmo ka dhalay oo hooyadina arkaysa albaabka u laabaysa waa sheekadaan ka samri waayey haye tii miyiga ka dhacday taas ay iga darnayd haye ma garat haye علشان أنا قوم هذا اللي قوي كي واحد كتر شيء تقول الصومالي ودم بيده قش قبضني هاي قوي زي دافتي ريري دافتي ماله ماشي واحد كتر إذا وانا ما عقوبة ماشي كتر أضد عقوبة أنا ميل ما هريسو أنا قوي يربى بري قبي تريو قبي قاسوش وكسر إسنا إلهي الدنيا ذن أميكو بيرد كيسي قرآن الدليلية حبيب كيسي محمد هودر عليه الصلاة والسلام حقيقة ذي سجى يقانا marka gabadhan damage bay dadka u geysatay wax ceeba bay Soomaalida faaxishay soo dhigtay wax laga yaabay keentay anigu waa fajacay ana dhar waxa weeydiye kiiski noocan hame laakiin si gabadh yareedme laakiin qof marna waxay ugu leedahay meel kale u yaala saan u yaalo عشان qof iska dhaafinay wad garanaysa laakiin maadaaba maanta meeshii ay ilaahay banaanka soo dhigay oo adduunka ta ugu weyna ay ta ugu xun caruura markay leedahay hooyadii iyo aabihiin duuba taasaaba ka xunba wax walba walaalo adigu aad u mahadsan yani dadkii daawan jiray baad ahayd seebay kuugu dayday bacdamaa qof weyn oo caqli la aad tahay inay ku tiraahdo kaalay been samee oo iska dhig qof kale yani damiirkiisa u sii aqoon teleg bay ku lahayd markay kugula dhiiranayso inaad waxaa samaysid anigu hadda inay maqashaan rabaa qof gaarigayga ku jiray ayaa duubay markayna dayn weyday anoo gaariga kusoo adeeganaya codan ka duubnay baan haynaa waxay igu buushgaraynaysay qof bila aadana oo wax beena oo ku tiri ku teena inaan iska dhigo no baan ku aniga lama buushgarayn karo waxaan ahay qof diblomaasiya wax aanan hayna ma sheegayo wax beenana ma sheegayo Soomaalideedana ilaa laas casayr ilaa laas companies my people I don't want to tell you something wrong baa ku iga qalee marka waxay igu jawaabtay waan hayaa iyadoo duuban haddaadan arrintaa ii filin dib kulama hadda weligaa haylaha dibmaa ku ilaahay dartii ma nagula wadaagi kartaa codkaas bacdamaa waxaan waa fidno walaalo fidnadana waa in ummadda laga qabto waajib baana ku saaran gabadha caaliya codkeeda hadda soo dhigtay baan u dirayaa codkan okay caaliya u dir عالي أنا دريا إن شاء الله بإذن الله لكن هذا واحد يصير وحي ويبقى فشلنتي الله درتي ما الله ظهره ده ولا الله درتي هدي الله ظهره صو دبعتني كوسي واد ما يصدقك الصوماليين المساكين تاها I know أنا مقالة لأن شو قبل يرادين يسيبا هي شتاي قلت لي قبل أو تبغى أدي قصة قرية قصة دوب كمان تدوب يأكل وقص وقلب أنا قبل إن يقدوب ما شيء لقط كتبت ويسون رجعين كتوب يقوم على كله كله هذا وقصة دع والله taladaadu waa tala fiican laakiin in ummadda laga qabto adiguna ajar baad shaqaysanaysaa codkaas waad dhiibaysaa si ummadda Soomaaliyeed ay waragto Soomaaliya dhagihiina maanta wax ku maqashaa gaa walaal aad baad u mahadsantahay tabakan horta anigu been sheegi ma qalad badan bay soo qof hadda qoys Soomaaliyeed qofkii ku qaldanay hadda jid dhaxal leedahay aad ugu qaldanay soo ma ogid waarun marka anigu aasa Soomaali u hadlaya ilaa laas casay laas Camboni waa dhulkaygii waa dadkaygii waa dhiigaygii qobol quraanu kama tirsan Soomaali baa la dhahaa Soomaaliyeed baana magacaygu waxa wasanta dhiigaygii dhacaankaygu waa Soomaali marka qof Soomaaliyeed waa ku xadgudbo ma doonayo walaal adiga aqoon inta leeg waa isku lahaydan adiyadu يعني مليون بان كبرتي ولا لكن هذا waxaan faaxishadan dhacday waxaan leeyahay ilaahay dadkii weynu aragnay qofkii dambe ee anigu iskaraab damana siin maayo waxeedana mar dambe daawan maayo because waxa jira waxyaabo la yiraahdo akhas bay duumaysay adana akhastii bay ku dhamaanaysaa insha Allah aad baad u mahadsantahay boqolkiiba boqol taladaadi siisay laakiin waajibka ku saaran waa in والله waxaan jeclaan lahaa in la iska daayo because wixii baa too much noqday okay hadii la iska daayo ummadii dhibkii ku sii wada ka war hadii horta hadda waxa tiri boosaasaha lagu qabto hadii ilmo dhoofinayso waxaan kuu sheegayaa Soomaalida dhan ha maqasho qofka tuuga ilmaha dhoofiya targetka isaga ilmaha ma kaxeeyo qofka laga filayn baa kaxeeya ma fahanti qofka tuuga ee targetka ee filimaanta waa weyn sameeya ilmaha ma kaxeeyo wadankeena ilmaha laga xadaa ilmaha laga soo dhoofsadaa we have to stand in dadkeena ilmaheena inaan gobol laga raadiyo meel walba laga raadiyo sidoo kale anigu East African deganaa muddo 16 years waxa ka dhacday borderka Kambaliya Kenya nin Soomaaliya oo la dhanka yimid ayaa wuxuu ku qabtay nin madow ilmo yar oo aaba leh ma garad
ninkii Soomaaliga ilmihii ninkii uu la qabsaday jeel baa la isku geeyay labadii nin DNA baa laga qaaday ilmihii Soomaaliga ahaa iyo ninkii wuxuu dhaanaa dhalay madowgina wuxuu dhaanaa dhalay ilmihii af Soomaali buu ku leeyahay aabo inankii Soomaaliyeed ilaahay baa wuxuu ka dhigay ilmi yara iskidii ka dhigay ilmi halkiiba ninkii madowbaa laga qaaday Soomaali haddaynu nahay waynu baaba'nay oo waynu hoognay qaarad walba dhiigeen iyo dheecaankeeni baa yaala inaga isbaabinay Soomaali haddaynu nahay ala kulli xaal haddii aasa Soomaali ahaan aynu inagu dadkeena u naxno oynu joojino kana tareera oynu joojino kana midgaan oynu joojino kana hebel fulaan ah oynu Soomaali magaca Soomaaliyeed hada target ku raadsano wallahi waynu soo noqonaynaa wallahi laakiin intaynu ku jirno ana amiir anta amiir reer gobol reer hebel reer fulaan qura iyo galool dad ma noqonayno okay walaal ma isku dayday inaad la xiriidid oo aad kala siisid iyada oo tiraahid bacdama aad fashilantay ummadda Soomaaliyeed intii aad dhibaato u geysan kartay waad u geysatay walaalay gabar Soomaaliyeed baan ahay arrintan George oo ka bax ma isku dayday markaa maadaaba ay anigoo intan leego qof weyn oo Soomaaliyeed ah oo ku hadda ku sheegay Soomaali baan igu tiri qof iska dhig I don't think so intaan wacayna aniga waanayga maqlayso mana iska dhigi doono qofna aniga ma buush garayn karo madan qofka bilow aadanka ee la yuus garaynayana isagaana walba qof ahayn aad baad umahadsantahay dhowr adoo gabadh qura noole eg bay dhayay soo gelisay ee markaan arkay anigiiba intay igu tiri qof iska dhigdee sidaasoo kale qofka kale noo soo kaxaysanaysaa marka qofkii ka yeela isagaa dhintay oo dee khalaas ah waa nothing you know what I mean kulli wixii ay wada sheegi jirto dhab halka waxa ka cad inay wax wada been ahaayeen ala kulli xaal Cabdixakiin oo waxyaabo waxa jirta maalinaan qofna qof ka fakan daynin maalinta iyo marqiyaamaha ee kontonka sano ee haddana bacadka la taagayay ee qof waliba qof wuxuu u geystay uu soo matagayo anu waxaan ahay rasiid lacag ku direban hayaa dadka soo tusi karaa laakiin waxaygi maxaan u niyoonaya sadaqa ilaahay xaqiis arunta aad baad umahadsantahay 100% insha Allah qof dhimanaya markay soo geliso ee waxaad doonaysaa qofkan waxaad cunaysaa wuxuu tuu arun ay ha rasiid hana Abuukar baan ugu qoray way soo wacday waxay igu tiri lacagta magacayga bedel maxaan ku bedelaa baan ku hana baraata ay ha still rasiid koon haya marka aniga waxaygi hadii khiyaamo ku baxay iyo hadduu khiyaamo ku bixinba waxaan u baxsaday waa qofkii calaalka ay ku soo daysay anigana sadaqadii way ii jirtaa qofkii beentaa sheegana aakhirada baa u sugan aad baad umahadsantahay 100% adiga mudana bariyo jazakallahu khair Soomaaliya waa u jeedaan gabadhaas Keenada ka soo hadashay waxay ka hadlaysay maqalseen ismayna aqoonin iyadii lafteedii ayaa ku tiri kaale been sheeg oo qof kale iska dhig cod baan ka duubay bay tiri codkii caaliyan u gacan gelinayaa bay tiri waana soo geli doonaa baraha bulshada aad baan dhamaantii idin salaamaya laakiin ugu dambeyntii barnaamijka waan ka baxaya maamul goboleedka Puntland iyo dadka mas'uuliyiinta ah qofkii haana lagu arko waa in dawladda maamulka Puntland ay daba galaan qofkaas wuxuu la shaqeynayaa gabadhaas ilgaar ah lagu fiiriyo dhammaanteen waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wada shaqeyn waxa